shaki kama jiro waddanka Soomaaliya maanta dadka ku matalaya laamaha sharci dejinta dawladnimada asalka oo ah waa intiina halkaa fadhida iyo in la mida oo maanta qolo waliba ay meel joogto waxaana hubaala inaan garanayno waddanka aan ku noolahay ee sharci dejinta u tihiin meesha uu ka yimid iyo meesha uu maanta taagan yahay haddii ayna jirin markaa niyad wanaag iyo wada shaqayn iyo is-ogaansho iyo dadku inay isku celceliyaan shaqada la qabanayo qof waliba wanaagga uu ka raaco waxaa inta badan timaada dhibaato ama caqabad waddankeenuna uuna ogolaan karin ama uuna fursad u heli karaynin ay caqabadoo ku timaada way ku adag tahay inuu ka dawbaxo ama ka dhexbaxo waxaa aad maanta iigu ah sharaf weyn inaan xildhibaanadii 51 ahaa ee labada aqal ee Jubbaland bayskoodu ahaa intoodii badnayd ee joogtay maanta aan halkan wada joogo marka koowaad waxaan rabaa inaan idiin sheego dadku waxaa lagu jiraa waa siyaasad masaajid laguma jiro waxaad ka shaqaynayseen waa siyaasad waxaan ku dhex jiraay ma aha qofno qof kale xoolo uma raaco ma jirto masaalix shakhsiya siyaasaddu waxay keentaa kala aragti duwanaansho waxay keentaa fikirkoo lagu kala duwanaado waxay keentaa istiraatiijiyada oo aragti kala duwan lagu kala qaato inaan horta loo qaadanin inay jirto wax nacayba ama shakhsi kula dhaxeeya ama wax dan gaara oo dadku ay kala leeyihiin asal ay u tahay in la iscafiyo oo caadi la iska dhigo sidaa markaan leeyahay waxaan rabaa inaan idiin xaqiijiyo shalay waan garanaynaa Jubbaland markii laga imanayay waxaan markaan isteediyada isxamanayna waxaa loola jiray Axmed waxaa ahayd qofka keliya baarlamaankiisa saamaynta ku lahaa hadday noqoto gacan iyo hadday noqoto qalbi fiicanba waxaa intaa soo raacaysay weliba markaan idin soo diray dardaaran baan idin soo siiyey dardaarankaan idin soo siiyey wuxuu ahaa mas-uuliyaddu inaad xildhibaannimo noqotee ma aan igaga eg tahay waddankii wakaas dabiirkiina wax ku doorta taladiinnu ha idin gaadhsiiso caqligiinnu ha shaqayso sidaas ma ahayn ma raba inaan idinku eedo dadka qaarkii waxoogaa qaar baa hoos fooran iyo waxbaa jirjira haddaad dawladda la shaqayseen oo doorateen oo soo dhoweyseen dabiirkii aan shalay idinkula dardaarmay bay ahayd idinkuma eedi karaya soo maaha hadday anaga iyo dawladda waxyaro jirjireenna maanta wax dhibaato dhexdeeda yaallaa ma jiro waanu ka heshiinay haddii waqtiyada qaarkood aan lahaa anigoo nimankii hebel iyo hebel lahaa maanta gurmad uga baahantay maxay kuu kaalmayn waayeen waxay yidhaahdeen niyo damiirkii hore noo sheegtay waanu ku jiraaye wax kale ma geli karo marka waxaan rabaa hadda taas inaan saa u ogaano oo caadi la iska dhigo aanan idiin sheego maanta qofaan waxu qabaana inuuna jirin idinkana qofkii waxii qabaan rabo intii la iscafiyo inaan horta innagoo caadi wada hadalno